بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdullaahi Janno. caawo waxaan rabaa inaan isdul taago qoraalka, khaasatan labada qeyb ee uu inta badan loo kala qaado ah curis iyo sheeko, oo af ingiriiska aynu u naqaano academic writing iyo creative writing. bal aan sameeya marka hore dulmar guud. waxaan ku bilaabayaa qeexitaanka waxa ay tahay curistu ama composition, kadibna waxaan u gudbayaa sheekada. waxaan haddana usii gudbi doonaa noocyada curista iyo noocyada sheeko, deetana haddii aan la idmo gunaanad ama conclusion baan kusoo qatimi doonaa. markii la qeexayo curistu, waxaa lagu tilmaamay inuu yahay curisku waa qoraal lagu gorfeynayo qodobo ka baaraan degis iyo xaqiijin u baahan, ama la isku barbardhigayo laba arrimood, ama lagu qeexayo wax fikrad ahaan u jiro, ama lagaga doodayo oo la isku qalqaalinayo sameynta mise joojinta ficil. curisku wuxuu leeyahay thesis, topic, sentence iyo conclusion. saddexdan haddii af Soomaali ahaan isku dayo, thesiska inta badan waa waxa ay dhahaan controlling idea, ama waa qodobka warqada ay dhan ay ka kacayso oo warqada oo dhan isku haya oo xukuma, ama waa madaxa warqada oo dhan isku haya fikradeeda. topic sentencigana wuxuu ka shidaal qaataa thesaska, oo qodobadii aad ku xustay thesaska ayuu topic sentencing mid mid u qaadaal dhigaa. marka dhammaadka tagtid oo conclusion ama meesha mijaha warqada tagtid, halkaasna waxaad isku soo xireysaa conclusionkii oo aad gunaanudeysaa doodaadii aad kusoo falanqeyneysay qoraalka, khaasatan qeybtan curiska ah. ida haddaan sheeko u gudbo, sheekadu sidaas kacad waa dhacdo dhab ama qayaali ah. waxay leedahay bilow, dhexdhexaad iyo dhammaad. waxaa astaan u ah sheekada dareenka bini-aadamka, feelings waxaan dhahno, iyo fikradoodaba, thoughts, waxa maskaxdooda ka dhex sharqamaya, ka dhex guuxaya, iyo dareenkoodii wax ay jamanayaan, waxay ka cabsanayaan, waxaasoo dhan baa sheekada laga dhex helaa. waxay leedahay aalado socodsiiyo oo ay ka mid yihiin plot, setting, character iyo theme. afartaasaa ugu muhiimsan. plotkana wuxuu inta badan u dhacaa silsilada ee ku socota dhacdada sheekada weeyaan. settingkana waa goobta iyo timeka u dhacayo. character waa cidda sheekada wado oo ama jilaysa. teamna waa mawduuca guud ee sheekada. hadday tahay mawduuc wuxuu noqon karaa colaad, wuxuu noqon karaa jacayl, wuxuu noqon karaa nacayb, wuxuu noqon karaa hanqaltaag, wax walbuu noqon karaa. waxaa marar qaarkood lagu lixeeyaa laba qodob oo kale, oo midna ah style iyo point of view. stylekan wuxuu u dhacayaa qofka luqada uu doorto, sida uu u qoro ereyada, siduu isugu aadiyo, sida uu u xusho luqada. ma luqad wuxuu ku hadlayaa iska caadi ah, ma mid heer saroo dadka aqoonta leh keliya loogu talagalaa, ma afsuuqi buu ku hadlayaa. styleka waxaasaa soo hoosgalayay luqada si uu doorto. ma wax jacbur ah miya, mase waa luqad saxan naxwo ahaan, ereyo gaagaaban muu isticmaalayaa, jumlad gaaban, waxaas dhan styleka soo hoosgalayaan. point of viewna waa qofka sheekada sida ku socoto, cidda ay ka imaaneyso sheeko ahaan, ma waxay ku socotaa qof iska sheekeynayo oo leh anigoo sidaana
baa waxaa dhacay, markaasaa waxaan sameeyey, markaasaa sidaas arkay. mise waxay ku socotaa qof laga sheekeynayo oo ah waxaasay sameysay, markaasay sidaa tiri, halkaasay xaggaas u dhaqaaqday. marka point of view-na taas ayay ku saleysan tahay. curiska wuu noocyo badan yahay, aad buu noocyo badan yahay, ilaa 9 nooc buu gaarayaa. waxaa kamid ah illustration, waxaa kamid ah persuasive, waxaa kamid ah descriptive writing, waxaa kamid ah compare and contrast, waxaa kamid ah cause and effect, waxaa kamid ah narrative. haddaan zuul taago illustrationka, waxay wax ku muujisaa tusaale badan oo waa waxaad ku doodaysid, laakiin saad u muujisid waxaasaad ku doodaysid wax kale ma keenaysa, tusaale badan baa keenaysaa, tusaale badan. persuasiveka ama midka qof wax ku qaalinaysa ama aad ku doodaysid argumentativeka ah, waa dood aad ruux ku qalqaalisid inuu arrinkugu raaco. midka descriptiveka ama sharaxaada ah, waxaad muuqaal sawir ah ka bixinaysaa meel ama dhacdo, waxbaad sharaxaysaa, ama ha noqoto wax la taabto oo aad sharaxaysid oo meel sawir iyo waxaasi ah ka bixinaysid, ama se wax u dhaceen baad sharaxaysaa. compare and contrastiga isaga waa wax laisbarbar dhigayo oo laba shay ama laba arrin laisbarbar dhigayo. cause and effectina waa qoraalka lagu eegayo keene iyo la keene, oo aan ka jeedo wixii dhacay iyo sababtii ay u dhaceen ee keentay. narrativeka iyadoo waxay u dhacaysaa falanqeyn taariikh ama suugaan hore oo u baahan in la qodqodo, la faaqido, dood iyo dersi cusubna laga soo dhiraandhiriyo. marka waxaasoo dhan waxa ay hoos imaanayaan curis. waa noocyada waxay kamid yihiin curiska, intaasna kuma eka, waa ka badan yihiin. noocyada sheekayga haddaan soo koobo, waxa weeyaan waxay u kala baxaan kuwooda aan aada ku naqaano: fiction, non fiction, adventure, horror, romance. waxaasoo dhan bay igana u kala baxaan, laakiin intaa waa in kooban, wax way ka badan yihiin. fiction sida la yaqaan waa sheeko qayaali ah, non fictionta waa sheeko dhab ah, adventureka waa sheeko qar iska tuura oo qofku uu macnaha ama intuu buur aado, ama uu baddaas dhex jibaaxo, ama uu diyaarad intuu aado uu diyaarad iska soo tuuro, uu isleeyahay waxaanay dhahaan scuba diving oo kale, iyo oo uu sameynayo sheekada dhan ay ku saabsantahay sheeko qof macnaha tijaabo iyo sameynayo iska tuur, taasoo ka helayo farxad ruuxi ah. dabcan sheekooyinka noocaas adventure baa la dhahaa. horrorna waa midda cabsida, waa naqaanaa filmaanta cabsida ah. romancena waa sheekada diiradda saarto xiriirka dadka ay leeyihiin, khaasatan xiriirada ku saleysan qisooyinka jaceylka oo kale. marka noocooyinka sheeko iyagana intaas way ka badan yihiin, laakiin intaasaan ugu gudbayaa. gunaanad, markii laga hadlayo horta qoraalka, waxaa ilaah mahadleh haddaan anagu aynu nahay muslimiin. suuraddii ugu horeysay ee qur-aanka waxay ahayd iqra, oo amarka ugu horreysay rasuulka lasiiy alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa wax akhri. haddana haddaa aayadda sii wadeed waxaa arkaysaa iyadoo haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay alladii callama bilqalam, ilaahaygaas oo dadkii baray qalimka. taa marka waxaa kutusinaysaa islaamka muhiimadda uu siiyey qoraalka iyo akhriska labadaba, both reading and writing, oona ah runtii mid aan u baahannahay inaan ku farxno oo aan ka qaadno, macnaha aan ka shidaal qaadano. sideedabana qoraalka haddaan usoo noqonan midka hadda aan jaamacadaha iyo kolleejyada aan u tagno wuu noocyo badan yahay, ma aha wax lasoo koobi karo, waqti in la geliyo u baahan yahay. wax akhriskan wuxuu kobciyaa heerka qoraal iyo faham ee shaqsiga. qoraalka iyo akhriskaba ama qalinka iyo buuggana sidoodabana waxay labaduba aas u yihiin ilbaxnimada. halkaas buu caawa inoogu joogayaa dulmarkii guud ee qoraalka. insha allah
khayr baynu sugnahay. Asalaamu calaykum.